in lagu magacaabo Aamina Muuse Udiriye isla markaana qofkii loo maleynayay in malxiisadu ahayd gabadhii aroosada ahayd loo ogaaday inuu yahay nin rag ah ayaa waxa uu markii ugu horeysay warbaahinta uga waramay siday wax isku bedeleen. Cabdiraxmaan waxa uu sheegay in gabadha iyo ninka malxiisada ahaaba ay xidhan yihiin kiiskooda ay gacanta ku hayso maxkamadu. gabadha la Aamina guursaday markii aan guursaday kadib sanaain wala soo wareegay markii aan la soo wareegay aan la soo wareegay guriga la soo wareegay reerka la soo wareegay ayay soo raacday intaas gabadhaas markii hore la socon jirtay markii inta la socon jirtay ana guursaday la socon jirtay ayaa markii dambe soo raacday kadib 20 cisho ee guriga uga noolad kadib dabeetana iyadoo gabadha uga noolad guriga iyo xaafadda ku nool markasta way naqaamay miya ma naqaamnay naqaabku markii meelaha u baxay xidhan jirtay laakiin waxay xidhan jirtay dharkii dumarka iyo labisi shisheeye roob burasha in qalin sunne in labisii dibna wax walba mirsan jirtay wixii dumarka farsaano dhan mirsan jirtay dabeetana ma na dareemin xaafadii ma dareemin marka gabadhan iyada isku wadatay ninka marka hore magaranaysa oo guriga ku wada noolayeen balay disaymka markii dambe la xaqiijinayo guriga ku wada noolaayeen oo ay u shaqeyn jirtay gabadhan xaafadan inanka yar u shaqeyn jirtay dabeetana in staatay guriga ku yimaadeen marka in kadibna in 20 cisho markay guriga noolayd ay galabta dambe iga tagtay markay iga tagtay dabeeto in hooyadii oo doonaysa ayaa timi gurigii markay timi in ay xaafadii weydiisay Aamina ma inankii Cabdiraxmaan kula joogay iyo marka xaafadii maqlaysay ma tidii Cabdiraxmaan lama joogin waxa la joogtay inan la yiraahdo Asma dabeeto saasay ku fashilantay arintii iyaga fashiliyay markii dambe anagu waxaan ogaanin marka in maxkamadda waxaan saligan weyn saliga iftimaan ku soo xidhnay inankii iyo gabadhiiba kiba doontay markii saa ay hooyadii tiri ma ahayn gabadha inankayga baabay tiri markii ay caynka tiri gabadhii iyo gabar kale walaaliyiino in guriga tilaga soo wareejiyay ayaan xidhnayo in guriga intaan ugu yeedhay guriga keenay ayaan ku arrintaas dhacday dabeetana arrintaa ka warrama waan waxay arrintaas u jirtaayo ninkaas waxaan inaan muhayn marka xaafadii baa ku kacday oo tiri maxaa dal orin ugu qarinaysan ayaa habliye la saxan jirtay ayaa xanaaqay oo in meeshii maxaa dal ugu qarinay tan war saasan ku xidhnayo saliga ku geeyay markaan saliga geeyay labadoodii walaal ahaa ayaan ninkiina keena markaan wixii iyaga keeno markii dambe naloo keenay isagoo nin caadi ah oo dharkii rag xirma ayaa saliga la keenaa. dhinaca kale Cabdiraxmaan oo la weydiiyay sababta keentay in laga dareemi waayo ninka malxiisada uu hayday iska dhigaysay dumarka maadaama uu la joogay muddo ku siman 20 cisho waxaan shakineega ma gelin macal xaafaddu dawi dareemay wax dareemay waxaan waa nin damana aniga la cadeeyay reerkoodu bacdi fashiliyay anagu ma dareemin waxba ma dareemin inanu banaysan waxa uu ka hadlay waqtiga uu la soo sheekaysanayay gabadha uu guursaday waxaana uu tilmaamay inuu ka hor la sheekaysan jiray isla markaana telefoonka la hadli jiray ninka malxiisada isaga uu noqday gabadha internet guursan ka hor marka ruuxa la sheekaysan jiray inaan qofkan kan isbedeli ay marka hore la sheekaysan jiray marka wuxuu anu diyaar ma yahay in noo shaqaysa ayaan baraya marka saadirtii inuu bareekan markii uu na barayna inantan walaalayiin baa ila soo hadashay telefoon miisan iyadu marka waxay tidhi إنك عبد الرحمن ما دقايو مثلا كلها لكن أنت يا ما ماشي كذا ما حلو أنت لا تجي بالي إن نوك عليه ده حبل تجيني عبد الرحمن أو أنت كاريك حس وعادي وصل فريق عادي تسادر تتر كل ما خلاص تتر الناس قبل كوكوسين عبد الرحمن ayaa si dareen la waxa uu ka hadlay inuu waqti badan ku biilinayay gurigiisa gabadhiisii ahayd xaaskiisa iyo gabadhii loo haystay malxiisada ee markii dambe isku bedeshay ninka waxaana uu ka waramay qaabkii markii malxiisadu ninka isku bedeshay loo ogaaday uu dareenkiisu noqday maxkamadda iyo saliga si wanaagsan nolol shaqeeyeen marka waxaan ka codsanaynaa culimada diinta iyo in wasaaradda diinta iyo waqafta iyo riyaasha dhaqanka iyo dadka islaamka inay naga caawiyaan oo arinta nala eegaan oo soo garab taagaan oo noogu yimaadaan arinta dhici jirtay maaha waxaan ugu dhacay dhibaato xoog leh baan ugu dhacday reer dhanoo burburay guurkii qasaaroobay iyo reerkii iyo wixii magaranaysa oo dhan baan ugu dhacay dhibaato weyn baan ugu dhacday marka in lala eego in arintaa la yimaado wasaaradda diinta iyo waqafta iyo culimada diinta iyo odayaasha dhaqanka nala eegaan dadka islaamka oo dhan waxa kala kulmeen inta badan guriga ma joogin roodi baan qaadi jiray magaranaysa maalintii oo dhan maqan jiray habeenkii inta hore oo dhan كوبيت مكان حين ما نمشي مركا إن يلو تكتب حفظي أنجي تكتب أيام نمشي مكانسلا مركا ده إن أكثر من ده أكو بيلين شلون ده أكو هاي لبده إن كان ناقة سوتة ده إن ما لكو بيلين يأكو يلاري يو إن ده وشغيني مركا إن dhinaca kale waxa uu ka hadlay markii maxkamaddu su'aal ka weydiisay waxa ku sababay inay dhacdadani sameeyaan jawaabtii xaaskiisu ka bixisay arrintaasi iyo xiriirka ay reerka gacalka yihiin arrintan ugubka kuwa dhaqanka islaamka kala soo sameeyeen waxay ku dooday waxay u kalifay
وده waxay u kalifay jiray wuxuu jiray markii horeba sheekada markii horeba wan sananu ismaal jirnay guriga joognayba aan kale qaban jirnay marka tii guriga la joogay maxaa la yimaadeen dii laba qof oo isoo tumbay markii horeba xagaa isku guutay xagaa isku guutay lama soo way noo yimaadeen laakiin waxba lama xajisan waan wada Soomaaliyeed si caadi noogu iman saldhiga yimaadeen waxay ku noogu ilaahin dadkii cadcideen iyo reerkiina wax dhexdeen marka aan reer nooma hadii qofka wata yahay ninka labadan ninkeena ka taysotay haayeen ay noqdeen marka reerkaasi nooma iman nooma isku fadhiisan marka waxaan warqnimada in reerkooda ku ogaayeen iyo magaranaysa xaafadii iyo wixii isku ogaayeen ayna ku arnaalka saatan malayna inan baaxdan leeydi waxay yiraahdeen marino ka jirtay marka horeba isku xaafad haayeen intaas ma xidhan laakiin familygooda gabadhii kala soo wareegin gabadha soo wareejisay gurigeeda laga soo wareejiyay ina moogay degan tahay magaranaysa marka iyadoo lama soo anigu waan xidhay laakiin wala sii daayo saliga sii daayay gabadhii waxa uu fariin u diray dhalinyarada guurdoonka isagoo uga digay inay ka digtoonaadaan malxiisadaha oo uu sheegay in isbedelkoodu bateen waan la iska baaraa la iska qabsadaa deeli waxa kale wax dhici jiray ma Abdurrahman markii la weydiiyay ninkan gabadha isku bedelay leeydi markii maxkamadda la geeyay maxaa waxaan ku kalifay muxuu ku dooday horta wixii wala marka leeyahay waxa ma sameysay horta wali waxay ku kalifay lama weydiinin anoo lama cadin laakiin marka leeyahay waxa ma sameysay midhaha wax walba ha biiliin oo waxay de waqranaya wax qiraal weeyo ilaa maxkamadda ilaa saldhig wax walba qiraal marka wixii ku kalifay de laakiin igu waxay aabahay bay dili jiray aan magaranaysa daabinalkan mu joogina gabadha guriga joogtay dhinaca kale Safiya Xasan Cumar oo guriga la joogtay malxiisadii inanta ahayd ee isku bedeshay ninka ayaa dareenkeeda cabirtay waxaana ay sheegtay inay argagax ka qaaday markii maxkamadda la soo taagay gabadhii ay u haysatay malxiisadda oo shaar iyo surwaal xidhan daahidna anagu inta ay nala joogtay dhowr iyo 20 yeelano inan baan u arkaynay inan baan u arkaynay walaasheed caawinayso la joogta marka inta ku yiri walaal maxaad inta yar Fariida ninka ka qaadan doonta asmaa aaminaye inta asmaa isdaafi ninka ka qaadan wallahi waa Fariid yare isaga waxa tireel baan ayo abooyad baa tiri inta iskuulku fasax gaadhay ilaa ku noolatay daayna taas oo dirin marka saatina dama naan shudeyno waska aamusnay marka halkan dariiqa noo maraysa inay yaro waxaan moodayno si fiican reerka u shaqeynayso nin khayr kulka dharka jirka meedhanayo biyaha guriga u dhigi jirtay isuuliga u dhigi jirtay tiisumay maamulsan maamul jirtayba ninkan inta rasmiga ninkan noqotay ayaa maamul jirtay reerka saliida madaxa la marsaday haday tahay ninka iyada u keen jirtay qofkaas aan jiraa amina in qoyan baa tahay anagu dawaan kan xishoon jiro inanka seediga waa laga xishooday inantaada qureecda u gaado ninka ku qaba oo inanka hoos dirina ka jooji waxan noo meedhan jiray waa aamin jirtay iyaga is ogaana waxan wuxuu yahay hadalka ma keen jirin marmar ba halkaas waxaan xanuunsan jiray macaani Allah waxaan jirin aamina Allah cod weyne waan ka naxay wala marka ayaa tuure kulaanan jirin waan ka naxay baraay codka weyn markaas oran jiray ninkii maxay safay leedahay cod weyn baa tahay ku oran jirtay horta codka dara dib u duubi jirtay qolkan yar codkeeda yar dareemayna naabasha codka weyn maxay tahay waxani way yar duubi jirtay codka marka inanta yar yar waxaan ma sid fiican u tababar fiican la siiyay ma jiray wallahi waa inaan markii la iidaan maxkamada ku arkeen arkay wajigeedii wallahi matana asmaa ma ku matana asmaa marka waxba la isbarbarin jirtay miyaa oo iskama wayna qaadeen BMT iyo qasilka kolla wajigeeda ma dhimi jirin hadda in yaro 5 mirir may maqnaan jirin wajigeedani dhooban bas ay marsan jirtay waxaan habluus mariyaan emta qasilka da waxa habluus mariyaan bas marin jirto naasay roob bush isku sameysay guud yaro dhimatiman dheer isku sameysay deena yaro si fiican oo iyadoo tabartay iska leedahay yaabisan baahan jirtay walaalo ma sha Allah ina si fiican oo iyadoo tabartay ma jirin waxaan jiraa aamina inta yar Fariid inta halka farsta kaabada aamina man yeeray aamina inta yar Fariida waxaan ka yaa wiilka Cabdiya ina ka qaad adoo ina yar qabuuba taayaan ku yiri inta Fariida saamnka maamulaysa jirka meydka u dhigaysa biyo ku dhaqanayo ee saliid u dhigaysa qadada siinaysa way ka qaadan inta istaafi